maalin wanaagsan dhammaan asxaabta la socota barta ciyaaraha tiyub kusoo dhawaada wararkii iyo weliba sheekooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta kulamadii xalay la ciyaaray tartamada Yurub ee UEFA Champions League waxyaabay laga diiwaangeliyay kulamadaas iyo sidoo kale xaqiiqooyin ku saabsan isla ciyaaraha caaba jira. xalay waxaa la ciyaaray kulamo muhiim ah oo ka tirsan tartanka Champions League haddii aan ku hormarno kooxaha Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaar ka dhacday magaalada Milan waxa ay ku kala baxeen hal gool iyo hal gool. sidaan la socono kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo Inter Milan waqti badan ay siiseen waqti badan ilaa daqiiqadii 85aad ee ciyaartaasi waxaana goolka Barcelona u dhaliyay xidig la yiraahdo Malcolm oo bedel lagu keenay halka goolka bareejada Inter Milan ay kaga mahadcelinayso ciyaaryahankeeda lagu magacaabo Mauro Icardi. haddaba falanqeyn ku saabsan kulankaas iyo sidoo kale waxyaabihii labada kooxood ay sameeyeen natiijo ahaan iyo waxaan fiirin doonaa fursadaha hadda ay haystaan groupkooda. Barcelona waxay kusoo gashay shax fiican Ousmane Dembele oo Messi bedelay ma xumeen inkastoo maalmahan tababaraha kooxda Barcelona Ernest Valverde oo fursada ugu fiican siinayay xidiga lagu magacaabo Rafinha Alcantara. haddana Rafinha wuxuu iska ahaa ciyaaryahan inta badan aan kooxda si fiican ula qabsan inkastoo kulankii koowaad ee fursada la siiyay ee la wajahayay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan uu gool dhaliyay. haddana qaab ciyaareedkiisa ma xumeen saa darteeda waxaa ka fursad fiicnaaday Ousmane Dembele oo ah ciyaaryahan orod badan shoot sameeya gambis sameeya raacasho leh nasiib darasi xal Ousmane Dembele fursado badan oo isku day darteeda gool ma dhalin asna waa la bedelay waxaa lagu bedelay Malcolm oo ciyaarta gool dhaliyay waqtigii dambe oo Barcelona laga barbareeyay. Inter dhankeeda Inter Milan waxay iska ahayd koox ku soo gashay inay badiso weerarkeeda oo afar ku saleysnaa Marcelo Brozovic oo dhexda ku jiray Ivan Perisic oo garabka ciyaaray iyo xidiga kale oo muhiim ah Mauro Icardi oo weerarka ciyaaray nasiib dara iyana uma suura galin fursado badan ay awooreen darteeda waxaa ka badbaadiyay golaha kooxda Barcelona Andre Stegen. ciyaartaasi hal ay ku dhamaatay Barcelona rajada ugu fiican haysata Inter si lamid ah Barcelona waxay u baahan tahay kaliya hal dhibcood inay hesho ama hal gool kulanka soo socda inay gaaraan. Liverpool aanu soo laabano Liverpool oo maalmahan marxalad adag ku jirta ama inay bareejo galaan ama xilli dambe inay gool keenaan ay noqotay kooxdii 5 gool 6 gool dhiibi jirtay oo Mohamed Salah Roberto Firmino Sadio Mane haysatay. Liverpool tababaraheeda aad loo dhaliilaya sababtoo ah tababare Johan Klopp wuxuu noqday tababare isbedel badan sameeya oo hal shax aan ku tiirsanaanin malaha ciyaartooyda ku badatay Liverpool taariikhoodu ay ka yaaban yihiin. xalay waxaa keedka lagu soo bilaabay xidig la yiraahdo Roberto Firmino mana u qalmin Firmino inuu keed ku soo bilowdo sababtoo Sadio xidig la yiraahdo Daniel Sturridge wuxuu ku wanaagsan yahay xidigaas inuu bedel ku soo galo oo ciyaarta xilli dambe la keeno laakiin kuma wanaagsan ciyaaryahanka in ku soo bilowdo kulankaasi waana sababta keentay Liverpool inay hoos u dhac sameeyso 2 gool ibra looga badiyay hadda 2 kulan oo waaweyn oo dhiman PSG iyo Napoli laga yaabo inay guul dareystaan ama inay badiyaan ama inay bareejo galaan 3 dhibcood ay rabaan si ay xaqiijiyaan soo bixitaankooda wareegga 16 ee tartanka Champions League. Klopp hadda sidan wax ku wadan maamulka Liverpool uma dul qaadan doonaan caawa kulan weyn jiro Manchester United iyo Juventus waxay soo gali doontaa 5 saac oo habeenimo xilliga Soomaaliya waana kulan weyn. Ronaldo ayaa wajihi doona kooxdiisii hore Jose Mourinho wuxuu doonayaa inuu ka arguto maadaama ciyaartii Old Trafford Juventus ay soo badisay. Juventus waxaa ka maqan Douglas Costa xidig Brazilian orod badan Palacio Matuidi ciyaaryahan xoog leh iyo Mario Mandzukic balse saf dhameystiran ay haystaan. aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb fadlan subscribe saar barta ciyaaraha tube like star share garay muuqaalkeena mahadsanid.